وحواي سيدا أوكتين سوق وحال سوق لي ريان وأوكتين أنيقا دادك عانكي فنانين تح waxa dhabta ah confirm boqolkiiba boqol shariifka keeleysiin mataqaana waxa waaye maxay aniga qofka magaciisa saddexan aan sheega meesha ku dhashaan sheega meesha marwan gabadhan u ureen been waa sheekada suuq ku jira horta war aan been aan waxba ka jirin waay waxa waaye gabadhan waxay isku noqdeen ninkeeda hore Cabbaas isku noqdeen ruwaydo rayaan yaa rayaan magaceedu waxa la ruwaydo Abuukar Jilcow waa gabar hawiye abgaal galmax mataqaana cili cumar sheekh cali waaye waxa waa mataqaana gabar laan dheero meel banaan degto waaye mataqaana hadii ayada sheegato oo waxeesla oo Cabdiraxiin hada sheegatane Salaamaan waxas dib ma laha maxay abgaal waa sheegi kara waxas wuxuu ma arko la gabar laan dheera oo cili cumar la yaqaano farac ka farac walaale dhan la yaqaano way rayaan gabadhan yaa waa gabadhan waxa la Amaan Cabdullaahi Cali ayadana waa iska waxa waa mataqaana cili cumar waaye mataqaana labadooda hadda waxa waaye waxa qabay Cabbaasna rayaan uu qabay laba cunug u dhashay Amaanna ninkaasa qabay oo cunug u dhashay way fureen hadda way ku soo noqdeen macnaha waxa waa ragga waadeenka waxa la xalaal ma dhintii aaminsiin macnaha waxa waaye ragga kala lamid ma ayaga taas markuu waxay keentay labadan nin laba naag ay fureen oo laba gabdhood waalid soo ah inay horta ku soo noqdaan horta taas keenaysa marka waxa waaye Amaal waxa waaye ninkaan ku noqotay ninkeeda hore ogaadeen waaye mataqaana waxa hadda waxa waas qaban Allah u barakeeyo Amaal waxa habreer u ah Rayaan habreer u ah Rayaan walaasheed ka weyn Yasmin oo Ingiriiska degan dhashay Amaal dhashay taas ma fahanteen mataqaana walaalo ma ahan waxa waaye waalid Amaal waalida loo yahay Rayaan oo Rayaan magaceedu ruwaydo nolosha hoose ka soo bilaabay waxa waaye waa soo rafaad sida ogtiin waxa waa dadka nolosha hoose ka soo bilaabo way bajaajo wada jirtay doonta malaay soo dabanaysay maanta meesha taaganta u jeedin naag ganacsata isku furan oo waxaan ku dhahay kala argo ma sha Allah way Rayaan waxa waaye gabar u dabeecad degan way macnaha wax kasto dib kasto waxay jeceshahay waxay ka fiirinaysaa dhinac kale ka fiirinaysaa haddii ay dib soo gaaro dibka ayda soo gaaray waxay ku sabraysaa dhinac kale waana sababta keentay Rayaan inay nolosheeda kor u kacdo maxay gabar aad u sabr badan waa gabar aad u dulqaad badan waa aniga dhowr mar asla hadalay wallahi billahi taala marka ninkan u soo qarxinay aan soo dhigay mugtahay ninkan baarisa aan ku sameeyay wallahi billahi taala way qabat wuxuu tiri shariifo iska dhaaf ku tuuga wallahi billahi taala ayda markaat noqonayso labadii gabdhood kale aan soo dhigata magacyadooda oo dagaalka Rayaan dhaawacay markaan soo dhigay wallahi billahi taala ayda dhashay iska dhaaf maxkamadii ma aadin la ka iska dhaaf macnaha waxa way haduu dib waxay jeceshahay Rayaan waxay jeceshahay qof dib ku geystaa qofka ninka ka soo hadlay Rayaan waxay jeceshahay qofka inay ka celiso ay dhahdo iska dhaaf ila dadka isku dhaaf qofka way dhibaatay sax way laakiin iska dhaaf Rayaan naga dhaqankaas le way macnaha waxa way in sabarkooda marka godo ku rida hadda ninkan uu soo qarxiyay maanta way ku noqotay dadka marka waxay u qaadanayaan Rayaan inay jabtay ama Rayaan inay u dhamaatay dadkan nolosha hoose ka soo bilaabeen Rayaan ayadoo shiid waxba haysanin oo 100 shilin kayaati haysanin ay Nairobi soo gashay nolosha hoose ka soo bilaabay ninkan cunugaan isbarteen wala shaqay aad u shaqay macnaha asagana shiido waxba haysan nolosha labadooda hoose ka soo bilaabeen waa dad 12 sano ka badan is yaqaanay way macnaha oo jecel dhaxmarin laakiin isku darsaday inay mataqaana noloshooda iyo mataqaana siday ay ganacsi u sameeyaan lahaayeen ama siday dhaqaale u sameeyaan lahaayeen macnaha waxa waaye noloshooda kor u qaadi lahaayeen ku heshiiyay way ilaahay muxuu qadar inay isjeclaadaan ay isguursadaan laba ugu dhashay waa kala tageen ayadana cadaana guursaday kadibna qamara guursaday haddana soo noqdeen marka ayadu waxa laga yaabaa inay ka fiirinayso maadaama Cabbaas aad u taqaan aniga waxa dhici karto inaan ka naqaan Cabbaas inuu nin balowd leeyahay nin fudud inuu yahay hadda kor xaaskiisu waa tuu soo qarxiyay waxa dhici karta asaga maseer inuu u sameeyay macnaha laba soo qarxinay inuu maseer u sameeyay macnaha oo qamar ka maseeray ama dad kale inuu ka maseeray inuu xaaskiisu inuu ku soo noqdo soo ma dhici karto laakiin ayaga waxaan ka wadaa ayagaan iska ka yaqaano macnaha labadan qof